hadlayo midnimada Soomaaliya ama arrimaha maxaan ku dhaxayso koonfur iyo waqooyi kulli caadiyan arrintaas kulli anaga ahaan hadii shacabka Muqdisho aan aad baan u soo dhaweynaynaa magacaygu waa Bashiir Cabdulqaadir Jaamac mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada sare iyo macaahidda gobolka Banaadir waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kulankan looga hadlayo soo celinta iyo midnimada Soomaaliya ee u dhaxeeya walaalaheen Somaliland iyo Soomaaliya magacaygu waa Bukar Jidda Cabdi sidaan u arko wada hadalladu waxa weeyaan anigu inaanay waqtigan hadda lagu jiro dawladda farmaajana ay iskabaabsi waqti gabaabsi ku jirto Somaliland arrimeeda kale ay la tacaalayso uma arko shakhsiyan iyo aragti ahaanba inay ku habboon tahay balse dawladda iyo arrimeedu way iyo xisbiyada qaar sida xisbiga wadaniga kale way isla qaateen inay galaan sida wararku sheegayaana dawladda caalamka ayaa dabada ka riixaya sida aan wararka ku hayno oo Mareykan ugu tuun yahay oo ay sidoo kale waxa iyaguna goob joogayalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti marka waxaan u rajaynaynaa maadaama dawladdeena go'aan ka qaadatay inay guul ay ka soo baxdo arrinka oo Somaliland dhankeeda itiraaf iyo wax iyada u ah guul oo in taageeraya